shaqeeyo jawi ku dhisan kalsooni midnimo dulqaad isu tanaasul wada tashi iyo mas'uuliyad wadareed in la xoojiyo xiriirka iyo wada shaqaynta dawladda federaalka dawladaha xubnaha ka iyo gobolka Banaadir la iskuna ixtiraamo mas'uuliyadaha dastuuriga ah ee la kala leeyahay iyo kuwa wadaaga ah in la ilaaliyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka iyo wadajirka si loola dagaalamo argagixisada in la adkeeyo amniga dalka meelna looga soo wada jeesto xoreynta dalka iyo la dagaalanka argagixisada in la yimaado qorshe dhammaystiran oo wadajir ah oo lagula dagaalamayo argagixisada heer federaal iyo heer dawlad goboleed iyo gobolka Banaadir baa lana xoojiyo ciidamada dawladaha xubnaha ka ah dawladda gobolka Banaadir xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo gobolka Banaadir tababar ahaan iyo agab ahaanba sharaf weyn bay noo tahay maanta halkan aan ku saxiixno heshiiskii iyo wada hadaladii socday muddada usbuuca ka badan oo runtii kusoo dhammaaday wanaag arrimo badan oo runtii muhiim dalka wahaana laga wada hadlay ugu horeyso arrinta siyaasadda amniga dastuurka iyo federaaleynta dalka sida uu wasiirku akhriyayba dhammaantoodna runtii aan ka gaaray heshiis wanaagsan muwaafaqo wanaagsan aan isleenahay waxayna siinaysaa fursad aan hore ugu soconno dalkan ugu adeegno si wada jir ah niyad sami ah Soomaalinimo ah wanaag uu ku jiro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in xilligan Soomaaliya ay joogto aan xamili karin kala qaybsanaan waxaana madaxweynuhu xusay in lama huraan tahay in shacabka la badbaadiyo marxaladda aan haatan aan ku sugannahay inooma saamaxayso kala qaybsanaan kalsooni darro iyo kala shaki dalkani maanta wuxuu nooga baahan yahay badbaado dadkeeduna waxay naga dhowrayaan naga sugayaan inaan ku hogaamino waddo sax ah sidaas darteed waxaan ku heshiinay inaan isu tanaasulno waxaan ku heshiinay inaan is-aaminno oo aan ka wada shaqayno sidii loo ciribtiri lahaa kuwa shacabkeenna maalin walba xasuuqaya oo ay ugu dambeysay falalkii bahalnimada lahaa ee waxashnimada lahayd ay ka geysteen Zobe iyo Nasaha qof kasta oo Soomaali ah waxaan ka rabnaa in haddii annaga oo madaxda dalka ah aan isla qaadanay istaraatiijiyad iyo qorshe midaysan iyagana waxaan ka rabnaa shacabka inay kaalintooda ka qaataan garabna siiyaan ciidamada geesiyiinta ah oo ku jira aagaga frontiga ah si ay uga xoreeyaan shabaabka dalka dhalinyarada Soomaaliyeed waa inay ka qayb qaataan xoreynta goobaha wali gacanta ugu jira shabaab hooyooyinka Soomaaliyeed waa inay doorkooda muujiyaan oo ay caanaha iyo biyaha ka dabageeyaan wiilasha iyo gabdhaha ku jira frontiyada dagaalka culimada waxaan uga fadhinaa oo aan ka sugaynaa inay ku baraarujiyaan shacabkeena Soomaaliyeed oo muslimiinta ah ayna cadeeyaan in al-shabaab aysan diin shaqo ku lahayn